magaalada dekada ku taale ee Berbera ayaa sanadadii u dambeeyay waxay horumar weyn ay ka sameynaysaa adeegyada ay bulshadu u baahan tahay Berbera oo kamid ah magaalooyinka ugu taariikhda iyo faca weyn Soomaaliland isla markaasina ay ku yaalaan haraaga dhismayaasha ay ka tageen dawladihii iyo ganacsatada kala duwanaa ee Berbera degana waayadii aynu soo dhaafnay inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn waqtiga rasmiga ah ee Berbera la degay haddana waxa ka sii muuqda haraa ay ka tageen dawladihii Roomaanka, Greek, Turkiga, Masaarida iyo sidoo kale wadihii Ingiriiska, Ruushka iyo Mareykanka iyo dawladihii ka dambeeyay. Hadda magaalada Berbera ayaa waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu horumarsan Soomaaliland isla markaasina ay ka hirgaleen mashaariic waaweyn oo maalgashi ay hirgeliyeen dawladaha shisheeye qaarkood halka ay kuwa kalena ay ganacsatada wadaniga ahi ay maalgeliyeen way ka mid yihiin maalgelinta dekada Berbera, Verizonka iyo sidoo kale airportka caalamiga ah ama madaarka magaalada Berbera iyo kuwa ay sidoo kale hirgelinayaan ganacsatada wadaniga sida warshada weyn ee daqiiqda, warshada jiingada, warshadaha kalluunka iyo sidoo kale kuwa yaryar oo aad u tiro badan oo waqtigan ka socda magaalada Berbera. Marka haddaba laga yimaado mashaariicdaasi waxaa sidoo kale jira kuwa ay jaangooyaan maamulka degmadu ama golaha deegaanku oo sanad walba la hirgeliyo waxaana mashaariicdaas ka mid ah kuwa kor loogu qaadayo adeegyada caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo sidoo kale bilicda magaalada Berbera oo ay wadooyinku ugu horeeyaan. wadooyinka Berbera waxay ku hana qaadeen oo ay maanta sharaftan u yeeleen mudnaanta koobaad xamsiina wadadii jirtay horta wadooyin aad u tiro badan oo gaadhaya 100 kiiloomitir oo isku wareega ayaa laga hirgeliyay gudaha magaalada Berbera kuwaas oo ay maamulka dawladda hoose ay sanad walba qorshaha ku darsadaan wadooyin kala duwan. marka waxaan ku bilownay wadada kasta in dib loo hagaajiyo asfalna la dhigo marka runtii wadooyin qurux badan oo bilic badan ayaanu sameynay de waxaan xasuustaa maalin dhoweed Mukhtaar baa soo dhigay sawir halkan intii ka horeysay waqtigiina la doortay wadada magaalada caanteynada meesha la adoonka cidna garanaysa caanteynada labadii kaabood weynaaye istabuucan ku hayeen baa ku yaalay meesha jarna way meeshu aad u kala fogaa mitir bay ka hooseysay de maantana wadu ka samane quruxiisa yaabtide de labada weeya wadooyinka dhamaantood maanta marka laga reebo loo wado wax dhamaantood asfal baan ka dhignay tarmiguna waa ka asaaska imka wadadan laba jeer bay cimrigeedu sii jirayaan marka wadooyinkii hore de waa wax indhahina ku aragtay oo maanta waxba ku noqon maayo wadooyin aad u fiican oo tayo leh ayaa magaalada gudaheeda ka qabsoomay in la ilaaliyo oo aan isbedelna waa muhiim weeyaan sanadkan wadooyin runtii aan xilnay qiimahooduna sareeyo oo ay shidaalkina uu kacay daamirkina uu kacay ayaanu insha Allah qaban doonaa wadooyinkaasi waa lixda wado laba wado aad u qurux badan insha Allah hordhaceedan si sheegi doonaa wadada koobaad waa wadadan imika 2 kiiloomitir 300 mitir ah xaafadda Finland dhexmarta isku xidha wadada Burcay Hargeysa isku xidhi doonta wadadaas waxaan ugu talagalnay 3 mitir oo dhexda ah oo la beerayo 5 mitir iyo 5 mitir 10 mitir ah wado maxaan ku tarmiga oo asfal ma aha mardan ma saar doona laakiin waa tarmig aad u adag oo tarmiga ma waxa ku dhowdahay sometimes asfalka ku dhawaata lagama garto ku horaan sameynayba mitir iyo badh waxa weeyaan safety-ga waxa ku xigaya sidewalk hadana ku xigaya wadadaasi 24 mitir buu balaceedu noqonaya dhexroorkeedu noqonaya dhararkeeduna waxa weeyaan 2 kiiloomitir 300 insha Allah maanta sawirkeedu ma muuqanayo laakiin birito markuu dhamaado dhowr bilood ka bacdi 3 bilood ka bacdi ama 2 bilood ka bacdi dhamaan doonta insha Allah guud ahaan de boqolaal bay tagayaan hadii aan wanaga hore u sheegnay 130 kiiloomitir maasay noqonaya marka laga soo bilaabo 2013 ilaa imika wadooyinkan sameynay wadooyinka qaar baan laba jeer sameynay salahan magtaan aan ku sheegano kale intaanu tarmigi dhignay oo hagaajinay sanadkii hore sanadkii dambe asfal dhignay marka laba jeer wadada sameysay tahay waa laba qiime leedahay wadada haddaba cajaa'ibka ah ee dadka magaalada hoose ku nool magaalada xeebba laga degaa runtii badda laga degaa daarole iyo barwaaqo ay aad ugu nafisi doonaan oo wadada weyn maxaan ku hadaaye BBC-da wadadaasna wadadana la mid tahay iyaduna dharahana waa kiiloomitir 900 meelaha kiiloomitir 900 waa laba haad iyaduna iyana saas leegba inta ay leeg bay leedahay ajiro wada kale oo iyadu Scandinavian ka baxdo maasoor dabiisa mar doonta oo warshada tagi doonta laakiin kama baxayso miisaaniyadeeda qorshaha miisaaniyadeedana kuma jirto muwaadiniinta infaaskareeyay
warshada dhan ee kalluumaysiga ee dhaqaalaha badan geliyay baan anigu u sii diyaarnay sarfeygii inay wadada intii waajibkayga sii qaadanay wali waxaan diyaarnay insha Allah in wax kala qabano wadooyinka berbera waxay kamid yihiin halbowlayaasha dhaqaalaha kuwaas suurtageliyay in berbera noqoto berbera maanta la amaanayo in maanta berbera noqoto berbera cagaaran in maanta berbera noqoto berberada lagu haysto maxay ahayd wadooyinka quruxda iyo wadooyinka maanta berbera laga daawanayo waxba wadooyinka lagu haystaa quruxdaas lagu haystaa iyo wadooyinkaas lagu haystaa wadooyinka inta badan waxa kor u qaadaan kaabayaasha dhaqaalaha waxa kor u qaadaan fitaanka magaalada runtii 10 sano u dambeeyay berbera waxa ku socday fitaan aan caadi ahayn taana waxa sababa meel kasta wada laga hergeliyo waxa kor u kacay dhaqaalaheega waxa abuurmaya ganacsiyo waxa abuurmaya shaqo abuur taana waxa sababa hergelinta wadooyinka doorta bacad baarki meesidba xagaaba berberaarki meesid geed bad ku sii nasanaysa waa ma sha Allah way taas talabada xaqi nadaafadana 100% baa laga gaaray berbera marka ay qabowgu soo galo duqsiba la arki jiray macaamka duqsiga la marko nadaafada ay halkii ka gaadhay markii hore saddex qof gaariga hadaan saarno عندنا نوت هاروني داوع بس سو غاري مدل laga suugan markaas 4 sano iyo bad wadooyinkii mikroog baa la wada dhigay wadiga arka magaalada horta aad bay u dhisantay aad baa loo dhisay dawad arkaysa waxaan u laamiyaala marka aad iyo aad anagu dadka wadooyinka u sacabtuma u baneeya oo ka gura u diyaarka degan ay u fiican u sacabtumaya soo dhaweynaya baanu nahay waxaanu leenahay maayarkii berbera malabku beeray oo ninka adhigi aanuga ayar saaray oo diya xaski ninkii aadeer naga guro ilaahay barakeeyo miyaadoo kale baaradka imanaya muxtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland.